xalqadiina hore waxay ku dhammaatay wiilkii Mike oo istaajininkii kale ku leeyahay seeftan ka iibsado oo lacag macquul ah iga sii haddii kale waxaan kaaga qaadanaya xoog oo lugaha ayaan kaa jebinaya oo u hanjabayaa marka asxaabay inta xalqadii hore nooga sii wadayaa ee fadlan muuqaalka like saara kuna soo bira kanaalka tahmigeen waa tankee waxay ayaan nooga dhiman imkan inoo bilaab xalqadeena maanta markuu ninku yimaado ku yiraahdo si seefta ayaa wiilkii wax ku yiraahdaa anigu waxaan leeyahay shaqaale fara badan oo ay shaqeeya wuxuuna ka adkaadaa shaqaaluhu u shaqeynayay una ka guuleysta ugu dambeyn maadaama uu wiilkan yar yahay wiil taajira oo rag badan u shaqeeyaan markaas wiilkii Mike wuxuu adeegsadaa seeftiisa Thunder ama danabka wuxuuna ku soo weeraraa wiilkii Marcus wuxuu isku dayay inuu baxsado markaas wiilkii Mike wuxuu ku baraarugaa inuu Marcus la baxsado seeftii oo uu ka qaatay dhanka la soo laaban odaygii Amonda lagu magacaabay iyo wiilkii Guy odaygii wiilkii yimaado wuxuuna ku yiraahdaa waxa rabaa samaysid seef ka khatarsan ama seef ka awood badan seeftan shuu aad isticmaalaysid mid ka awood badan yaa rabaa inaad ii samaysid maadaama aad leedahay awood lagu sameeyo seefaha laakiin hadda ma rabo inaad ii samaysid seefta ee waxaan doonayaa inaad seefta ii samaysid kadib markaa gacantaada ku bogsato ee hal bil kadib ku soo baxda gacan gooya miyaa soo baxaysa si geed camal oo Allaah nimigu cajiib markaas odaygii Ahmed wuxuu iska aadaa dhankii dabka wuxuu bilaabay dab iska shito oo iska isticmaalo seefiisi oo seefaha qaad iska gugubo markaas xafda ku soo laabatay gabadhii markaas wiilkii wuxuu sheegay gabadhu ku yiraahdaa ma jirto seef lamid ama seef ka awood badan oo aan samayn karo seeftan shuuna waa seefta ugu awoodda badan leh oo waxa ku jira shaydaan qofkii ku xidhayna waa qof aad u xakiin badan ama yani shayaadiinta la tacaamula xaggana lagama soo helayo qof shayaadiinta la tacaamula oo yani seefta ku xidhi kara ee aabbaha iga gaadhsii in aysan jirin seefa la samayn karo oo lamida seeftan haddaba qaarkeeda ka mida waxay leeyihiin seeftan laysku haysta ama yani seefta uu rabo inuu odayga samaysto ama seefta lagu magacaabo hawka haysto wiilka yare Marcus si ay isku leeynayaan wiilka Mike ee lacagaha kala siisanayo dabcan odaygan Aamun lagu magacaabo ayaa ka iibiyo seeftaas oo markuu soo dhatay wiilka yare yani oo arkay seefta isagoo wata ayuu xaraashu iibiyo seeftan oo yani meelaha madaxafyada uu ka iibiyo ama dawladda ayaa ka qaaday markaas waxa dhacda inuu wiilkeeda Tatsumi soo wadho ku imaado wuxuuna ku yiraahdaa seefta mar hore ayaa iibisay maxaa ku daba dhigay miskadiisa miskaga hadhay mas'uulku odayga wuxuu ku yiraahdaa waxa rabaa seeftan mid lamid ah la sameeyo maadaama aan weligii sameyn seef oo aan u qabo xamaasad inaan sameeyo seef lamid ah ama ka fiican oo aan ku faani karo haddana wuxuu muhiim ah in wiilkii Guy aan korsado sidaan u helo seeftaas aan uga faa'iideysto macluumaadka uu ku hayo maskaxdiisa maadaama seefta isaga la soo dhalatay oo shaydaanka seefta ku jiri isagu uu dhalay oo yani seefta markii wiilkeer lagu soo tuuray meesha xiligaas wiilkeer waxa ku jiray hooyadii ama hooyadiisan dhashay wiilkeer waxa ku jirtay shaydaankii oo yani maamulay jidhkeeda waxa kale oo ku yiraahdaa muddo 40 sano ayaan isku dayina sameeyo seef lamid ah seefta ama seef awood badan ku faani karo laakiin ma ay jirto ama sameeyin waana ku guuldareystay markaas isku dayina sameeyo seef awood badan maalmo kadib gabadhiisii iyada ka soo laabanaysa dugsigii ayaa waxay isla kulmaan Tatsumi ayaa wuxuu ku yiraahdaa waxaan rabaa inay justify cardkaaga ama yani visa cardkaaga waxaan rabaa inaan howlyar ku qabsade wuxuu ogyahay inuu yahay mid guuldareystay oo rajadiisa kaliya ay ahayd Aamun balse hadda Aamun uu doortay Guy oo waqti fiican la qaadanayo oo soo korsanayo laakiin wiilkan Tatsumi waxa ka dhadhacsan inuu aabihi necab yahay oo hadda uu Guy ka jecel yahay oo Guy uu leeyahay awood ugu sareysa ee lagu maamuli karo odaygan Aamun isla waqtigaas waxa yimaaday wiilkii Guy Tatsumi ayaana riixo ku yiraahdo xageed ku socotaa markaas Tatsumi wuxuu isku dayay inuu wiilkan Guy uu feero laakiin Guy ayaa iska qabta wuxuu bilaabay inuu ku jiido oo afar dhulka ugu daro markaas wiilkii waxa ka luntay controlkii ama xakamaynta ama saydaradii waxaan isku bedelaa zombie markaas gabadhiisii ku qalisa waxna ku tiraahday walaal maxaa sameynaysaa ugu dambeyn waxa wiilkii ku soo laabtay si caadiga ah ee saxda ah markaas wiilkii wuxuu isku dayay inuu sambuugan ku jira ama shaydaanka ku jira jidhkiisa inuu xakameeyo oo madax gidaar kala dhaco laakiin waxba yani kama tarayso ama codadkan ka soo baxay qalbigiisa waxba kama tarayso una awood waa inuu xakameeyo markaas gabadhu way qaylisaa waxayna tiraahdaa aniga kula jooga walaal istiji waxayna isku dayday inay dejiso oo wiilka xaaladiisa dejiso dhanka kale Marcus oo taajir ah ayaa ka soo toosa fiilay aad u qurux badan balse cidla waxaana salaam walaashiis oo ah qof been abuura oo iska dhigaysa walaashiis iyo waalidiinteed markaas wiilku wuxuu yiraahdaa hooyo iyo walaal ila ma rabo inay la joogtin guriga fiilada ay quruxda badan ee fulan guriga kala raadsada madaxna hiiqaana buuqeedu kadeetin bay dhaafo markaas Mike waxa uu maqlaa in wiilkan Marcus uu galay shil qoys isagoo qoyskiisa la nool ayuu shil galay waxaanu noqday curiyaan maalintaas
waxaana uu galaa dhakhaatiir badan ama wuxuu isku daya inuu qaliimo lagu sameeyo, laakiin dhakhaatiirta dhammaantood way diideen inay qaliimaan ku sameeyaan ama qaliin ay geliyaan si luguhu caadi u soo noqdaan. wiilkiina xagaas wuxuuna ka dareemaa xagaas rajo beelid oo wuxuu dareemaa in maalin dambe aysan usoo laabanin lugihiisa. maalmo kadib waxay imaataa saaxiibadiisii hore waxayna u sheegtaa inay guursanayso, ninkuna uu yahay saaxiibkiisa ugu fiicnaa ama noloshiisa ugu dhowaa, kaasoo la magacaabay Johnny. waxay u sheegtaa inay weli jeceshahay ama isaga ay jeceshahay rabto inay guursato, inkastoo ay dembiye fara badan dhexdooda yaaleen oo isliin jireen ama khilaafaad badan ay dhexdooda yaaleen, laakiin isaga ay weli jeceshahay. balse waxayna ku tiraahdaa waxaan rabaa inaad kasoo qayb geshid arooskayga oo aad ii hambaliyeysid. wiilkiina isagoo qalbi ka gubanaya ayaa wuxuu idhaahdaa intuu dhoolacday ku idhaahdaa waxaan ii rajeynaya nolol fiican iyo nolol bashbash ah. isagoo curyaan oo nolol khatar ku jira ay haddana hal mar la soo galaysaa nolol kale oo waaliya iyo qalbi jab. isla markiiba waxaa la hadasha seeftii waxayna ku tiraahdaa haddaa rabtid inaad aarguudatid hal maruun itaabso. markaasaa wiilku wuxuu idhaahdaa itaabsaa waabaan ku isticmaalayaa. seeftu u isticmaalaa, seeftii jinniga ayaa kasoo baxa wuxuuna galaa wiilkii. markaasaa wiilku wuxuu isku bedelaa qof awood leh oo mar labaad u istaagaa oo lugihiisa ku istaagaa. awooddaasna waxaa siiya shaydaankii seef ku jira seefta. wuxuuna idhaahdaa anigoo nolol khatar ku jira ama curyaana ayaad ii soo bandhiganaysaa jacayl iyo qalbi jab kale dul imanaysaa. haddaan kaa aargudan waayo labadeedana maanta nigu samayn doono ama aad inii dhigi doono cashir bilaa ciwaana bilaa laylaya. markaasa wuxuu yimaadaa meeshii ka dhacaysay caroosku, wuxuuna meeshii dhigaa bahal ama bahal weyn oo dadka raba inuu cuno. intuusan waxyeelo u geysan bahalkaasi ayaa daaqada waxa soo istaaga Marcus, wuxuuna bilaabay dadku dego ku yiraahdo waxa soo socda bahalkii Mikey oo seefta lacnada ahayd haysta oo dadka raba inuu dilo. fadlan iska taxadara, qof walbana ka fogaa meeshuu joogo, qof walbana ha taxadaro oo ha isqariyo. sidoo kale wuxuu adeegsanayaa bahal weyn oo rabo dadka inuu cuno. ugu dambeyn waxaa meesha yimaada Mikey isagoo adeegsanaya seefta haydii jinnigii, waxaana uu soo weeraraa gabadh. intuusan soo weerarin ayaa hal mar waxaa inuu isxakameeyo oo jidhkiisa xakameeyo oo waxa ku jirta qayb fiican oo qalbigiisa qayb fiican ayaa ku jirta iyo qayb xun buu leeyahay qofku. marka qaybtiisii fiican ee dhaqaaqda oo awoodda xoogaa yar kantaroosha. isla waqtigaas Nick ayaa soo gaaray goobta, wuxuuna Marcus u jeedaa ku idhaahdaa waxaa rabaa inaad tagtid meesha loo yaqaano shaashadiya magacadaka. wuxuu kaloo u sharaxaa ku idhaahdaa shaashadiya waa meel qasri ah looguna talagalay dad lamid ah iyaga ama qof lamid ah iyadoo kale oo aan awood lahayn. inta ay jidka ku jireen Marcus wuxuu gabadhii Nick u sharaxay ku idhaahdaa waxaa jira wax la yidhaahdo buu ama buu macnaheedu waa lacnad. lacnadaas waxay ku jirtaa hubab fara badan. hubabka mid kamid hadduu qofku taabto awooddii ayuu yeelanayaa ama uu isbedelaya qofku, wuxuuna isku bedelayaa bahalkaasoo loo yaqaano buu oo qofku saydarada ama kantaroolka ayaa ka lumaya. xaggaasna waxaa dhacay in xalqadaas noogu dhamaata asxaabay. fadlan muuqaalkuna cajiib like noo saar, subscribe saar. maca salaama wa shuufuku fi xalqa jaay.